ma jira xanuun iyo tiiraanyo ka weyn in ilaa 6 qof oo isku qoys ah ay hal meel ku dhintaan amaba ay ku qurbaxaan ilaa 5 kalena ay ku dhaawacmaan dhacdadan ayaa xalay waxa ay ka dhacday tabeelaha Sheekh Ibraahim ee duleedka magaalada Muqdisho waxaana la sheegay inuu geystay nin ku hubaysnaa qori oo dadkuna ay qaarkood sheegayeen inuu ahaa askari ninkan ayaa waxa la sheegay in qoyska uu dhibaatada u geystay uu ka qabay reer waxaana uu xalay uu ku furay baas oo markaasi hub uu sitay sida hadda idin muuqata waxa meeshan yaala dhiiga qaar kamida dadkii Allah u naxariistay ku dhintay meesha ninkan ayaa la sheegay in uu sitay indhashareerkan aadka u weyn ama niqaabkan oo uu isku soo xiray isla markaana uu baas u qabtay dabada dadkii oo markaasi iska fiidsanaya xalay abaare 8 fiidnimo iyo qadar daqiiqada ayuu nin hubaysan rasaas huwiyay qoyskan oo daqiiqado ka hor ka arinsanayay tacsida haweeney reerka kamid ahayd oo iyadana habeen hore lagu toogtay isla gurigan dilwadareedkan lagu gumaaday halka qoys ayay ka soo baxayaan warar kala duwan goobjoogayaal ku sugan kaamka ayaa ii sheegay in ninka dilka geystay uu gabar ka qabay qoyska uu laayay halka dadka qaarna ay tilmaamo kala bixinayeen Xaydar Kuusow oo ah horjoogaha kaamkan Daris Urone oo ah halka ay mashaqadu ka dhacday ayaa Kalson TV uga warbixiyay dhacdadaasi argagax lahayd walaalow xalay dhacdayaab leh meeshan ka dhacday aniga maamulka kaamkan ka mid ahay xalay waana la soo weeraray guri deriskeyga ah la soo weeraray meesha waa xabad lagu dhuftay goobyaal wuxuu noqday 4 meesha ku dhimatay hadda warbixinta isbitaal Madiina say igu soo gaartay xalaa dhimatay la leeyahay 5 ay noqonayaan habeen hore mida la dilay 6 xasaas ku noqonayaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ilaahayow nin walba xaqiisa ilaahay ha siiyo anaka dadka إلا هذا والله يا بنها نينك اللي ورك ما هينو وحمل عن كوشيك نملة إلا هذا والله يا بنياي. dadka qaar waxay sheegayaan inuu indha shareer xirnaa oo qoyskana uu ka qabay gabar arintaas ma jirtaa wixii aan ka sheegay Allahu callam waa aniga taas ma sheegi karo dadkii la wareysan lahaayna way baabaceen aan wareysan lahaay laakiin wixii aan ka sheegay dambi waa aniga ma sheegi karo taas afartii ruux ee qoyskan laga dhaawacay ayaa la geeyay isbitaalka Madiino ee magaalada Muqdisho dhaawacyadii qoyskan ayaa la geeyay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho Isaaq Cali Ibraahim waa xubin kamid ah qoyskan dhibanaha ah waxaana kula kulmay isbitaalka Madiino isagoo ku howlan dabiibka dhaawacyadaasi walaalow dhacdadaas waxay aheeday anagoo meel iska fadhino oo gabadha sida adiga oo aan ku tashahayno oo siday aan gabadha oo saddexda aan ku duugu lahaynay anaga reerkeena aan ku tashahay tashadaadkii 2 saac bara aheeday anagoo saan u fadhino ayaa waxaan maqlanay derbi anaga saan u fadhino qol yar saas oo u fadhino gadaasheen oo derbigu saas ay tahay oo lamiiri oo saaran axabad noogu soo baxday marba anagoo qolka yar ku jirno wixii dhan adiga waxa meeshii 4 qof meesh ku dhimatay 4 qofna dhaawac ka naqatay dhacdada intaas ay ahayd markii dambe gurmuda noo imaaday ciidana imaaday ciidankii ayaana soo qaaday maal dhaawacay maal meedkii isbitaalka dhaawac 4 ku jirto 4 ku jirto 4na waa dhimatay ninka dhibka geystay wuxuu ahaa ma aqaan kaas aniga ma sheegi karo hebel ma dhihi karo kaas waxa la sheegay in qoyskan aad ka tirsan tahay uu gabar ka qabay ma jirta arinta asiga ninka oo dhintay qoyskiis gabar oo ka qabay waa ka qabay taas waa ka qabay waa dhacdo naadir ah oo argagax ku beertay dadka degan kaamka Daris Urone tabeelaha Sheekh Ibraahim ee duleedka Muqdisho kuwaasoo bilaabay cabsi iyo barakac waxaana saakir la arkayay qoysas ka guuray halkaasi Maxamuud Soofeysana telefishinka Kalson Muqdisho